عليكم أصحابتي غير لما أنتي سودا وهذا قولي لكم أنا ما إذن لا يركي قلمي نوحان لا هي قلمي نمضينا إذن كله وأنا نبض كدقتين مشينا نينكي حلفة إنك إسكده يبغى حاضر تراد وأنا نمدينا في شقيسين مهم وحايدين عدد كنا إني صدق كنا أيسن dhibaatoobi inaysa dhibaatada ay la kulmeen reer guraceel aysa dad kale oo reer galmudug oo dambe aysa la kulmeen maxaa yeelay wax hal wax qalin lagu waayo qori lagu meelo waa inaad taas ka dhiidhisin inaan mar dambe lagu soo dhex gambanin aydin dhibaataynin maxay ahayd qofkii xil raba ama wadaadada ha ahaadeen ama qolo kale ha ahaadeen waa inay ay lihishiyaan maamulka meesha ka jira waxa si lagu dumiyo way fududaa laakiin si lagu dhis ayaa adkaanaysa dhigto oo la kala dambeyn iyo nidaam loo samaysto reer galmudug nabadiina adiga iskale yaan dhibaato leedin horseedin yaan dhibka leen ku badinin aan reer galmudug way la daldaalmaay waxa idin leeyahay reer galmudug nabadiina ka shaqeeya si lagu dumiyo way fududaa laakiin si nidaam lagu dhisaa way adkaanay way hormareen gobolada kale annagana waa dambeynaa maxaa taas goos gareeyay in jeclaysiga iyo qabyaalada iyo quranka meesha ka jira war meeshan hal qabiil ayaa reer galmudug madax noqda ayaga yaa ku heshiila maxaa ka qaldan kuwaas aan naftigayga mid ah ma ka dheeraaniga ha u malayn kuwaas ayaa ka mid ah waliba aniga gobolkaas galguduud aan ku dhashay ها إيمال إلى زهق حمران كسوف رلاكي يجذب الطش ما فهمت نبض الناس لم يقولوا وركتشو وشيء دبات هذا تتكلموها أيو أما لا دباتين أيو أنا تاسعين كالإهلام ما فهمت سومالي نبض أيال ناس لم يقولوا ما فهمت هلا جتشو dhibaataynta reer galmudug aan waxaan reer galmudug nabadiina ka shaqeeyay oo takadeen aan dhisano oo wallahi anaka nala bariya hadaa anaka intaas aan anaka naloo soo shaqo tagaa anaka soo shaqo raadin dhalinyarada shaqo la'aanta waa ay yihiin way ka baxayaan kada la habeeyna waxa la habeeyo qorqoruma isu imaado wadamadan markaas hadana waxay ku heshiiyaan inay wada shaqeystaan anaka maxaa noo diiday anaka isku diin walaalaha Soomaali maxamed isla hadana qabiil isku ayna heshiiweyn war waxaan aan iska deeyna qabyaalad iyo qorwaan iyo balaayada iyo reehibal iyo magaciis iyo jaclays ninka hadii la garday aanu heelin waa xadiisna haduu gardaray aan xaq u sheegno qal war qori dadku waa ka ilbaxay adduunka inta qor laga isticmaala meel aan oo Soomaaliya laga isticmaalo war qalinka qofka lagu dilaa qofaad qalinku dili jira ama afku dili kartid inaad qori u qaadato waa qalad qalina wax xal ma keeno qori wiil aan leeyahay dad aan leeyahay Soomaaliya aan sanka wax saan aan sida isku gadaan guul iyo gobonimo idin leeyahay dhamaantiin bogniista insha Allah dad igu cusubta iska reebtay